diyaaradaha loo keenay Itoobiya waan ka marnaa ma haddaan mirooga haysano qiimaha ka waran qiimaha kana ka qiimo jaban kana ka jaban oo dadku ka jecel yihiin oo lagu gaajoonayo maca dumarka ducaynaya xaga murqaanka ka war xaga murqaanka ma hay maca dumarka waxeelayaan weelka wax badan baa iska bedelo dhaqaale xadafadku dadku waxba iibsanayaan oo shaqadii saayid bay nagu haydo cuntadu sida ay dadku u cunayeen maaha cuntada xidawaan u kordhinay oo cuntada saayid aan ugu soo darnay taasad ku ogaanaysa markaa in baalkan u dhibaha dadka haysatay meesha ku haysay maanta iyo xalay quraan ka raysanay galiga maanta lacagteedii hilib iyo maraq baan kaga dharin ciyaalkeedina way cuneen ilaahay naguma soo celiyo baalka xalayna madhaareerkii goor horaan u tagno ciyaalkeedii casharadoodii wada qaybnay dawladda Kenya ayaa qorsheynaysa inay qunsuliyad ka furato magaalada Hargeysa ee Somaliland si loo kordhiyo qaadka la keeno magaalada. Wasiirka ganacsiga Peter Munya ayaa waxa uu sheegay in qaadka la dhoofinayo ay cashuuraha ka fududayn doonto qunsuliyadu. Munya waxa uu sheegay in dawladdu go'aankii ugu dambeeyay ay ka gaadhayso cilaaqaadka cusub iyadoo la bixiyay miisaaniyadii loogu talagalay qunsuliyadda. Isagoo ka hadlayay deegaamada Lari iyo Meilutatu oo ka tirsan degmooyinka waqooyiga Ingembe iyo bartamaha Ingembe ayaa waxa uu sheegay inay jirto istiraatiijiyad lagu suuqeynayo mirooga. dawladda Somaliland ayaa sintay tacriifada jaadka ka yimaada dalalka Kenya iyo Itoobiya. qoraal uu ku saxnaa wasiirka wasaaradda maaliyadda Somaliland Saad Cali Shire oo ay maanta shaacisay wasaaradda maaliyaddu ayaa lagu sheegay in la dhimay qiimaha cashuurta jaadka mirooga oo markii hore qiimihiisu ahaa $4.5 halka haatan laga dhigay 3.78 cents. dhanka kale waxaa sare loo qaaday qiimaha tacriifada laga qaado jaadka ka yimaada dalka Itoobiya kaasoo qiimihiisa laga dhigay 3.78 halka uu markii horena ka ahaa 1.57. go'aankan ka soo baxay xukuumadda Somaliland ee lagu simeeyay tacriifada qaadka ka yimaada dalalka Itoobiya iyo Kenya ayaa waxa ka dambeysay codsiyo ay sanadihii u dambeysay dawladda Kenya ku codsanaysay in hoos loo dhigo cashuurta laga qaado jaadkeeda mirooga si ay suuqa qaadka ee Somaliland uga tartanto dalka Itoobiya. Saciid Axmed Abakar oo loo yaqaan Saciid Barjasaafi oo kamid ah ganacsatada galada Hargeysa ee qaadka ka ganacsata gaar ahaan soo dejiya qaadka la mirooga. wasaaradda maaliyaddu waxa ay go'aamo ka soo saartay cashuurta wax kaga bedeshay qaadka mirooga waxba laga dhimay qaadka jabiskaan waa la kordhiyay. Sidoo aragtay wallahi waxaan arkaa waa arrin ayadu iyo shaqo ay leedahay qabsatay laakiin mid anaga noo taala ambaan wax ka ogeynba ma ahayn mid aan ka shaqaynana ma ahayn kulli waa policy amba siyaasad dawladda oo taala taanu kama jawaabi karo iyaga weydiin doonta marka ma qaadatay laakiin ma aqbashay aqbal de kulli anaga hadii waxna laga dhimay marka wax la kordhiyay waa ku dhibaysaa marka wax laga dhimana de kulli adiga dan ku tahay marka waa qasab oo aqbalayna wax loo aqbalayna de waxba laga dhimayba laakiin mid anaga noo taalay ma ahayn iyaga u taalidee waan gartay inta badan wasaaradda maaliyaddu markay qaadlayaasha wax ku kordhinayso ama ay wax ka bedel ku sameeyso tacriifadooda waa la gala tashan jiray arinta wax leedinka weydiiyay mise go'aanku ma ayba aragteen aniga waxa la tahay jamhuuriyadda Somaliland wasaaradda maaliyadda iyo ganacsiga iyo wasaaradaha kale iyo arrimaha gudaha hadii nabadgelyada wax ka qabanayso wax ka bedelayso dad kale ma tashato wasaaradda maaliyaddu hadii wax ka bedelayso cashuuraha way sameyn kartaa tashi laakiin ummaddu way badan tood in loo wada yeedhin waa laga yaabaa marar badan oo ka qayb galnay tani ma kalena de anagu miiro baan keenay miirogana waxba laga dhimay marka kaale waxbaan ka dhimayaa namay oran qolada kalena waxbaan idinku kordhinaa kulay looguma yeedhin waxba la igu lahaa qolooyinka kale markay tageen iyagaaba u tagay in qaadka Itoobiya ay ka cabanayeen cashuur xagga Itoobiya laga kordhiyay ay jirtay laakiin anagu waxaanu maqalay in cashuurta wax laga dhimay taasna waa shaqo dawladdu ay leedahay wasaaradda maaliyadda aad bay ugu mahadsan tahay dawladda waxaan ku buurinayaa shirkadaha qaadka waxaan ku buurinayaa in la helo 20% si ay soo noqdaan inaynu halkan ka sameeyno sidii kalluunka iyo milixda 100 milyan Itoobiya aan uga faa'iideysanayno nafaqo u baahan milix u baahan waxaynu geynaa ma jirto laakiin anagu jeebkiina waxaan kala baxnaa $10 iyo $100 waanu qaadnaa oromaan u geynaa laakiin dalkayaga xabad kalluuna soo qabatay awood u maleeyeen raganimada u maleeyeen aanu shaqo abuur sameeyno si $10 aan Itoobiya $1 uga soo noqdo taa waxaan leeyahay ganacsatada jaadka iyo ganacsatada kaleba war dadka shaqo abuur aynu sameeyno dadku iyagoo Soomaal oo faramaran bay soo joogsan doonaan haddaynu saas u lacagta ugu korno aduu qorshaam kugu jirtaa in shaqo abuur sameeyso meel kale oo dadka aad wax ku heliso aad iyo aad bay ugu jirtaa aniga ilaahay idinkiisa shaqo abuur ka horreyn sameyn doona waxa weeye in kalluunkan u dhoofiyo Itoobiya aad sababa ilaa iyo siidaamu oo Itoobiya inaan geeyo qaad kaga soo bedelo lacag bay iga qaadaan inaan lacag ka soo qaado aad baan ugu rajaynayaa
iminka waxaa la sheegay in Itoobiya ay dalacday qiimihii qaadka maxaad kala socotaa iyada way dalacday Itoobiya wayna arkoonaysaa Itoobiya bariga hore wajaale qaad keenaysay wajaale ka soo iibsanayna iminka laakiin kilka Oromadu lacag buu qaataa gaara kilka shanaad lacag buu qaataa gaara dawladda Itoobiya arrin qalada ay qaadlaha kula isticmaashaa iyo dadka khudradda keenaba waxa tiraa waa LC-guna wuxuu noqdaa baan to baan oo laba baan ba lacag kala qaata anu inta lacag la carro dollar shan dad ku qaadan banka Itoobiya awaash baan wagaaga baan halkaas lagu shubaa laakiin markay tahay LC waa in banka Soomaaliland inta lacagta ku shuba labada baan lacagta kala qaataan ma dhacdo waa arrin dhinac ka raran waxay noqonaysaa wajaalan dollar ka qaadaya suuqa Hargeysa ka urinaya awaash baan ku shubaya waxay markaa taas caqabad ku tahay waxay caqabad ku tahay dhaqaalaheena ku tahay jiritaankeena ku tahay dawladnimadeena ku tahay ummad ahaan bay ku tahay in aynagu aynu bir ku soo iibsano wixii Itoobiya aynu bir wax ku kala iibsano Soomaaliland lacagteedana aynu wax ku kala iibsano ayaa waajiba laakiin lacagtii adkeeda dollarka ahayd ee dadka qurba joog dibadaha waxay nooga soo dirdiraan waanu ka dhamaynaa dhamaad bayna ku dhowdi waa la qaadayaa lacagtii wax lagu soo bedelayaana totally ma jirto waana arrin fool xun in laga tashadana dawlad ahaan iyo dad ahaan bahayd iyagoo garaabada sidii keen lahayn wajaale